ayadoo sidaas tahay haddana caqabadihii hore u jiray waxa uga daray waxa weeye maantay hogaanka joogahi asagu wuxuu la yimid inuu u dagaalamo in dalku uu noqdo dal meel dhex laga xukumo oo central government ama unitary wax la yiraahdo uu yeesho oo laga guuro hanaanka federaalka ahayd oo la soo baabiyo oo hay'adihii iyo dawladihii xubnaha ka ahaa ee soo dhismay meesha laga saaro waxaana marxaanti ugu filan wixii Jubbaland ka dhacay oo aynu u wada joognay waxa marxaanti ugu filay wixii Galmudug ka dhacay oo xaaladeeda aynu ogeyn wixii ka taagnaa oo faragelinta lagu sameeyay intii la ekayd oo haatantii ugu dambeysay xoog loo sheeganayay in hay'adihii meesha ka dhisnaa oo run ahaantii aan ka xunnahay oo muddada dheer argagixisada la dagaalamayay oo hubiyay in goboladaas ay noqdaan gobollo nabad ah oo dadkeedu nabad ku seexdaan in loo adeegsado xoog iyo xabad oo waliba ciidankii loo tababaray inuu la diriro argagixisada ayaga lagu leenay in ciidankii loo tababaray inuu argagixisada la diriro oo dalka ka saaro amnigii sugo oo iyadoo laga duulayo maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa security architecture iyo dhaqaalihii beesha caalamka ku bixinaysay iyo tababaradii la sameynayay in ciidankii loo daabulo gado si maamulka Jubbaland lagula dagaalamo meesha looga saaro run ahaantii waa nasiib darro taas ayaana keenaysa oo runtii wax yar oo laga soo qaatay in Puntland maanta tiraahdo war dalku waxba ka khaldane aynu dib isugu soo noqono tashano dabadeedna markaas jihaad aynu qaadno arinta Galmudug saddex madaxweyne ayaa la doortay qalalaasi siyaasadeed oo muddo soo jiitamay ayaa ka jiray miyaan la oran karin dawladdu sidan ay xal u aragtay in lagu ururiyo bulshada reer Galmudug oo nidaam midaysan loogu sameeyo tan lafteedu halkay qayb ka noqon kartaa miyaan la oran karin maadaama ay hadda gacanta dawladdu isu dhiibeen madaxda Ahlus Sunna wal Jamaa oo warbaahinta la soo istaagay waa maadsantahay haddii xoog wax lagu xalinayo Soomaali hore ugu xalin lahayd rajimkii siyaad barraa isku dayay dadkii caraysnaa ee jamhadii abuurmay inuu xoog ku muuqanayo waa u suurtagal weey waa la socotaa taas ayaa waxay kaliftay maanta dalkii inuu kala go'o oo qaybo kamid ah ay sheeganayaan inay rabaan inay ka baxaan midnimadii Soomaaliya kuwii ka dambeeyay oo jamhadaha oo isku dayay dalka inay dhinaca kale u dhigaan oo ay xoog ku muuqanayaan oo xoog lagu qabsado baa shaqayn waayay marka haddii xoog shaqaynayo xoog hore u shaqayn lahaa waxaan kaloo rabaa inaan xusno marka laga hadlayo meelaha qaarkood inaynu wada ognahay maanta inaan aysan awooddu meel ku urursanayn waxaan dareemaysaa dadku in ay ka daaleen colaadii oo danaynayaan dawladnimo iyo dib u heshiisiin maanta dawladda dhexe ee federaalka mas'uuliyiinteeda waxyaalihii sida gaarka looga sugayay waxay ahayd oo mandate-kooda ama laga filayay dhamaystirka dastuurka oo waxyaalaha runtii aadka u taagnaa ahaa oo soo jiitamay waxaa ka mid ah dib u heshiisiin qaran in la qabto oo dalka dib u heshiisiin loo sameeyo oo waxyaalihii horey u dhacay oo xoog sheegashadan hadda aynu ka hadlayno horey u raad reebeen dalka Soomaaliya laga xaliyo markii taa la aadi lahaa dastuurkiina haddii meel la iska dhigay meeshii dib u heshiisiin iyo nabad la raadin lahaana hadda xabad hor laga bilaabay iyadoo la marayo sanadka 2020 runtii waa nasiib darro weeye